asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhowaada saaxiibayaal, waxaan hor usii wadaynaa filimkeenii xiisaha badnaa ee Sebastian iyo Belle. waxa uuna inoo mariyey markii ay Sebastian iyo Belle iska dhigeen ruuxaan, nimankii doonta saarnaayeenna ay aad uga cabsiiyeen. haddii aadan qaybihii hoos soo daawanin, dib ugu laabo janalka, waad ka helaysaa dhammaantoodaba. kadib waxaa dhacday ninkii hogaamiyaha ahaa in uu soo ceersado Sebastian iyo Belle, waxa uuna aad uga cabsanayey waxa ay sameynayaan, balse ugu dambeyn waxaa suura gashay in uu gacanta ku dhigo Sebastian iyo Belle-na ay waayaan meel ay ka baxaan. intaa kadib waxay bilaabeen in ay ka fikiraan sida ay uga baxsan lahaayeen ninkani. waxa uu asigana ku celcelinayaa, haddii aad iisoo dhawaataan xabad ayaan idinku dhufanayaa. balse markiiba waxa ay dusha ugu tuureen maradii ay hubsanaayeen. Sebastian waxa uu markiiba koray xariga shiraaca, halka Belle-na meesha uu iskaga cararay. intaa kadib waxaa dhacday ninkii inuu iska qaado marada, misena haddii uu indhaha kala furay, waxa uuba arkay wiil yar oo saaran xariga shiraaca. markiiba aad inta u xanaaqay ayuu wuxuu dhahay, wiil yahow, caawa dhan wixiina dhibayey ma adigaba oo ruuxaanta iska dhigayay. haddaba hadda ayay inoo taalaa aniga iyo adiga xisaab aad u weyn. haddaba dib u soo deg, yacni soo deg. markiiba Sebastian waxa uu bilaabay in uu kor u sii karo xariga shiraaca. ninkiina waxa uu ku qeylinayaa, soo deg, waad soo degi doontaaye. intaa kadib Budgie ayaa cabsaday, waxa uuna dhahay Sebastian, waxba ha cabsanin, aad ayaan ugu dheereeyaa sida meelaha loo koro. kadib waxa uu bilaabay Sebastian in uu raadiyo Belle, waxa uuna dhahay, aaway Belle. markiiba Belle oo ordaya ayaa meesha yimid. waxa uuna dhahay Sebastian, Belle, ha isku soo korin meeshani, ma awoodid inaad soo kortid. kadib Belle aad ayuu u cabsanayey oo waxa uu rabay Sebastian in uu badbaadiyo. ninkii markii waxa uu la soo baxay biskoolad, waxa uuna isku dayay in uu ku dhufto, balse waxa uu dareemay in waxani ay caruur yihiin. kadibna waxa uu dhahay, waa in aan si kale u ciqaabaa. intaa kadib waxa uu u wacay labadii fulay, waxa uuna dhahay, kaalaya, waxaan idin tusayaa maanta dhan wixii aad ka cabsanayseen. markiiba waxa uu dhahay, bal arka maanta dhan waxaad ka cabsanayseen. mise markii ay fiiriyeen, waxa ayba arkeen wiil aad u yar oo saaran shiraaca agtiisa. aad bay u xanaaqeen, waxay dhaheen, wixii maanta dhan ruuxaanta iska dhigayay ma cunugani yarbaa? haa, haddaba soo qabta oo soo dejiya. markiiba waxay u soo dhaqaaqeen dhanka Sebastian iyo Belle. waxay bilaabeen in ay ku qayliyaan ayagana, hadda ayaan idinka aarsanaynaa inta aad nagu dhigteen. balse meesha waxaa jooga Belle aanan marnaba oglaanaynin Sebastian in dhibaato loo geysto, balse si lama filaan ah ayuu Sebastian meeshii uga soo degay, halka Belle-na uu u soo cararay meesha uu kusoo dhici doono. markiiba labadooda waa ay wada kulmeen. meeshan waxaa yimid ninkii hogaamiyaha ahaa oo biskoolad wata. markiiba Belle wuxuu isku dayay in uu la digaalo, balse Sebastian waxa uu dhahay, Belle, bahashani waa khatar, saa moodidna maahan. kadibna meesha waxaa yimid labadii fulayaasha ahaayeen, waxa uuna hogaamiyahooda dhahay, waa inaad iisoo qabataan labadani. markiiba Sebastian iyo Belle dib ayay u baxeen, sidii uu rabay ayayna wax walba noqdeen oo shabaq meesha yaalay ayay ku istaageen. kadibna kor ayaa loo dalcay. markiiba waxa uu bilaabay in uu aad ugu qoslo uuna farxo. intaasi kadib Sebastian waxa uu dhahay, maxaad nagu sameynaysaan? mid ka mid ah ayaa soo booday, waxa uu dhahay, waan idinka aarsanaynaa wax waliba aad nagu samayseen. halka hogaamiyahoodana uu dhahay, lacag ayaan idinku gadan doonaa. haddaba shabaqa waxaa ka badbaaday Budgie oo dhulka jooga. intaasi kadib waxaa dhacday in nimankii oo idil ay soo qaataan cabitaan aad u fara badan, sidoo kalena cunno ay soo qaataan. waxa uuna hogaamiyahooda dhahay, caawa farxad darteeda waa in cabitaankani aan u cabnaa. mid ka mid ah ayaa haddana hadlay, waxa uuna dhahay, asigoo ku jeesjeesaya, wiil yahow, manala cabaysaa cabitaanka? Sebastianna inta xanaaqa ayuu wuxuu dhahay, meeshani naga saara. hogaamiyahooda ayaa u jawaabay, waxa uuna dhahay, badda ayaan kugu tuuraynaa, eyganina waan iibsanaynaa. sidoo kale ninkii kalena waxa uu dhahay, wiilkani yar aniga ayaa ka aargoosanaya, yaanan lagaaga tuurin badda. intaa kadib Sebastian waxa uu bilaabay in uu isku dayo shabaqani sida uu ugu bixi lahaa. sidoo kalena Belle waxa uu adeegsaday awooddiisa, balse labadoodaba waa ay awoodi waayeen. markii dambe waxa uu dhahay Sebastian, waa in aan xal fiican keennaa. waxa uuna arkay Budgie oo ka qasnayn
oona la cunaya dadkani waxa ay cunayaan. Markiina waxa uu bilaabay in uu Budgie u waco maadaama Budgie uu yahay mid aad cunada u jecel. Waxa uu bilaabay in uu wax ku tuuro, ugu dambeyntiina waa uu dareemay Budgie. Kadib waa uu u wacay Sebastian Budgie, waxa uuna hore u soo qaatay wixii uu cunayay, waxa uuna soo aaday dhanka iyo Sebastian. Markiiba meesha ayuu dhigtay cunadiisa, waxa uuna dhahay Sebastian, Budgie, waxaan kaa rabaa inaad halkaasi tagtid kadibna bahashani shabaqa aad hoos u dhigtid. Laakiin waxaasi waa uu fahmi waayey oo Budgie waxa uu soo qaatay hal lug dooro ah, waxa uuna bilaabay Sebastian in uu aad ugu qeyliyo, waxa uuna dhahay war halkaasi aad badhanadaasna taawo kadibna hoos inoo dhig. Markii dambe ayuu fahmay Budgie, waxa uuna dhahay Budgie yaana lagu fahmin. Intaa kadib Budgie waxa uu aaday dhanka iyo badhanada, waxa uuna bilaabay in uu si tartiib ah u koro. Markiiba waxa uu bilaabay in uu midba taabto, laakiin waxaa dhacday in Sebastian iyo Belle ay marba dhinac u dhacaan. Markiiba waxaa arkay mid ka mid ah nimankii meesha fadhiyey, wuxuuna dhahay bal meeshan ila arka waxa dhacaya. Waxayba arkeen Sebastian iyo Belle shabaqii ay ku jireen oo marba dhinac u liicaya. Aad bay u yaabeen, waxa uuna hogaamiyihii dhahay bal fiiriyo waxaas waxa sameynaya. Haddiiba markiiba la fiiriyey waaba Budgie, mid ka mid ayaa soo booday oo badhankii saxnaa taabtay, kadibna Belle iyo Sebastian sidaa ayay dhulka ku imaadeen. Markiiba waxa uu soo diray hogaamiyaha nimankii oo idil, waxa uuna dhahay soo qabta labadani. Markiiba waxayna soo qaateen ulal, balse waxaynan aqoon u lahayn Belle, mana laga yaabo inuu aqbalo Sebastian in dhibaato loo geysto. Intaasi kadib waxaa meesha ka bilowday dagaal aad u daran. Wax walba ay sameeyaan waa ay awoodi waayeen inay qabtaan Belle. Waxaa xitaa dhacday mid ka mid ah in uu ku sigto inuu doonta ka dhaco, balse mar kale ayay dib isku soo urursadeen. Haddana waxa ay isku dayeen in ay qabtaan. Sidii hore si la mid ah ayuu haddana ku sameeyey Belle oo dhammaantoodaba dhulka ayuu ku dhuftay. Kadibna waxa uu u soo laabtay Sebastian, waxa uuna dhahay Sebastian, Belle shaqo fiican ayaa qabatay. Balse waxaa meesha yimid hogaamiyahooda oo misna biskoolad wata. Belle aad buu u xanaaqay. Markiiba Sebastian fikrad fiican ayaa maskaxdiisa ku soo dhacday oo shilin ayuu inta jaab kala soo baxay ayuu indhaha ugu dhuftay. Markiiba Belle ayaa ninkii dusha ka koray oo biskooladii ayaana ka fakatay. Sebastian waxa uu dhahay bal ka waran saaxiib Belle awoodiisa. Markiiba ninku waxa uu ku jawaabay hal mar oo keliya iga kici, waxaad doontaan ayaan idin siinayaa. Markiiba Sebastian waa uu ogolaaday asigoo aad u qoslaya, waxa uuna go'aan ku gaaray ayaga in uu shabaqa ku dhex rido kadibna uu kor u dalaco. Markiiba waxay bilaabeen inay qeeliyaan, waxa uuna ninkii hogaamiyaha ahaa dhahay haddaba wiil yahow doqon baa tahay, eygani lacag fiican ayuu kuu gooyaa. Belle ayaa aad u xanaaqay markii uu intaasi maqlay. Intaasi kadib Sebastian iyo Belle waa ay soo baxeen, waxa ayna soo aadeen qolkii yaraa ee doonta laga wadaayay. Waxa ayna muhiimadoodu tahay in ay dekada dib ugu laabtaan si ay markaasina safarkooda ay hore u sii wataan. Sebastian inta koofida xirtay ayuu wuxuu dhahay waxaan ahay darawalkii wadi lahaa doonta, diyaarna waxaan u ahay inaan dib ugu laabto dekadii aan ka soo tagnay. Waxa uu awoodi waayey inuu gaaro isteeriga doonta. Kadibna waxa uu soo qaatay waxa uu ku kori lahaa amaba uu ku gaari lahaa, waxa uuna dib u celiyey doontii. ugu dambeyn Sebastian iyo Belle waxa ay dib ugu soo laabteen dekadii ay markoodii hore ka tageen. Balse
markii ay sida u imaadeen waxa ay la kulmeen dhibaatooyin aad u fara badan. Waxa arkay mid ka mid ah doonwadayaasha waxa uuna dhahay waa maxay kharibaadani meesha ka socotaa, misana haddii uu fiiriyey waxa uuba arkay dadkii doontii wadayay oo shabaq ku dhex jira. Intaa kadib Sebastian waxa uu isku dayay in uu doonta joojiyo, marba asigoo dhinac u leexinaya, sidoo kalena doomihii meesha yaalay oo idil ku dhufanaya doontii uu waday. Markii dambena waxa uu bilaabay in uu ku qeeliyo ma aqaani meesha bareega uu ku yaalo, talow halkee ayaan ka joojiyaa doonta. Ugu dambeynna waxa uu arkay darbi yar oo hortiisa ku yaala, waxa uuna dhahay Belle way inoo dhammaatay, hadda ayay doonta istaagaysaa. Sidii ay u soo socdeen doontii waxa ay ku dhacday darbigii yaraa, ayagiina dhulka ayay ku dhaceen. Waxa uu dhahay inta koofida iska qaaday Belle waa ay istaagtay doonta, maxaad sugaysaa? Markiiba waxaa dhacday in ay qeeliyaan kuwii shabaqa ku jiray ayagoona dhahaya nabadbaadiya. Waxa uu maqlay Sebastian dhawaqa gaariga booliska oo banaanka ka yeeraya. Markiiba waxa uu bilaabay in uu aad u cabsado, waxa uuna dhahay Sebastian meeshani ayaan ku dhumanaynaa Belle ee ka soo gambo. Booliskii sida ay u soo socdeen waxay u imaadeen nimankii shabaqa ku jiray, waxa ayna dhaheen haddaba xarig ayaa tihiin. Markiiba hogaamiyahooda ayaa u jawaabay, waxa uuna dhahay taliye maxaa nugu xiraysaa? Markiiba waxa uu dhahay taliyaha waxaad soo gasheen dekedda adigoonan amar qabin, wax walibana waad burburiseen. Hogaamiyuhu waxa uu ku jawaabay anaga waxaan ma aanan sameynin ee soo qabta eeyga iyo wiilka halkaasi ku jira. Taliyihii siduu u soo socday haddii misana uu qolka imaaday waxa uuba arkay koofi oo keliya meesha taala. Markiiba aad buu u yaabay, waxaana dhacday in dadkii meesha joogay oo idil ay doonta iskugu imaadaan, maadaama doonta ay wax badan burburisay. Sebastian iyo Bellena dadkii ayay ku dhex dhunteen oo gadaashooda ayay ka baxeen. Markiiba waxaa ka hor imaaday islaan aad u weyn, waxayna dhahday halkee ayaad u socotaan? Markiiba waxa uu ugu jawaabay Sebastian hooyadeeda ayaan raadinayaa, magaceyguna waa Sebastian. Sidoo kale Budjin waxa uu dhahay magaceygu waa Budji. Intaasi kadib waxa ay hore u sii wateen raadinta hooyadiisa. Halkaasi ayaynu ku eg tahay qaybta maanta aan idinkugu talagalay. Intaan kaga kulmeyno filim aad u xiiso badan sida filimkani oo kale ah, waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo. Maca salaama.